السلام عليكم أصحابتكم حنا جنال كسو دواada waa mar kale iyo muuqaal kale walaalkeen Xasan Caadle hadaba hadii ay tahay markii kuugu horeysay soo booqato janaalka waxaan ka codsanaa janaalka inaad subscribe gareysid muuqaalkana aad share gareysid waxaan doonayaa inaan trade qaato lacagta aan ka trade gareyn doono waxay noqon doontaa USD JPY halkan ayaan dhigan doonaa alarm anigoo u arkay inay tahay good opportunity oo aan ka sugi doono suuq markuu halkaas imaado walow ay aad iyo aad u dheertahay aysan macquul ahayn in halkan la imaado haddana waxaan raadi doonaa anada entry kale oo aan uga qaadan doono bawfo strategy daqiiqadaha soo socda suuquna wuxuu aadi doonaa uptrend haddii aad rabtid inaad ogaatid sababaha aan ugu trade gareynayo dhanka iyo uptrend waxaa jira course aan qaatay haddaba isku day inaad ka mid noqotid course-kaas lacagtiisu iyo faahfaahintiisa waxaad igala soo xiriiri kartaa qaybta linkiga description-ka aan ku dhigi doono groupkaas markii aad join ku dhahdid kadib igala soo hadal si private ah insha Allah warbixinta waad heli doontaa. Okay, aynu bilaano trade-keena. Suuqa wuxuu waqti ku leeyahay waa inaad sugtaa. Number 1 waa inaad sugtaa oo aad sugtaa opportunity-gaaga. Okay, candle-kan hadda furmay waa in uu dhanka iyo hoos soo aadaa si uu soo dhameystiro void-kan ama fair value gap-kiskan si uu soo dhameystiro. Insha Allah waxaynu arki doonaa haddii suuqu uu soo laabto ama uu alarmiskan aan dhigtay inuu dib u soo testi gareeyo ayaa la rabaa. Markaas kadib ayaan u qaadan doonaa dhanka iyo uptrend. mar walbo oo discipline-kaagu uu wacan yahay waa mar walbo win ratio oo sareeyo ama mar walbo oo aad discipline aad leedahay oo sugitaankaagu uu badan yahay waa kullama faa'iidadaadu ay badan tahay suuqan. lacagtan iyadana aan fiirino euro USD lacag fiican maahan walow ay soo jabsatay liquidity-ga haddana waxaa la soo bixiyay void ama order block so alarmina helnay. Okay, first alarmigeen ugu horeeyay waa la soo testi gareeyay so candle-kana rabaa markaan. Okay, waxaan isku diyaarinaa inaan ka qayb qaato dadka ibdaa trade gareyn doona. Halkan waxaa ka bilaaban doona ibda waa maxay waxaasoo dhan waa ogaan doontaa. waxaan u qaatay dhanka iyo da uptrend ayaan u qaatay anigoo helay confirmation-kii saxda ah ee aan rabay. haddaba confirmation-ka aan raadinayay waa kuwe waxay ahayn labadan candle waxay ahaayeen confirmation walow suuqu uu socday jiha uptrend ah. haddii aan si toos ah ku tuso suuqa jihadiisa bal halkan bal isku day inaad ila eegtid ama ila fahantid halkan suuqan waxa uu sameeyay higher lower high low higher high. soo jeedino halkan la imaaday it will go up and touch again or break up this liquidity-gan ayaa la jabsan doonaa insha Allah oo ma dhici doonto in liquidity-gan ka soo laga soo laabto. maxaa qaldan he waxa isaar milaayay sorry oo ku celiyaa war maxaa qaldan say wax jiraan halkaas waa meesha u dambeysay uu tagi doono suuqa insha Allah ama uu jabsan doono. waxaan soo laaban doonaa san inuu dhaco ma dhici doonto maxaa yeelay waa uptrend qurux badan waa kaas suuqu wuxuu aadi doonaa dhanka iyo uptrend sida ujeedaane. haddaba haddii aad doonaysid inaad ka mid noqotid ardayda waxaad kusoo biri kartaa linkiga description-ka ku yaalo si aad u heshid xogahan cajiibka ah. suuqu markaa wixii ka dambeeyana wuxuu u jihaysan doonaa dhanka iyo uptrend. ha isku dayna suuqa inaad sidan fursad seel ah uga raadisaan maxaa yeelay confirmation candles ayaa haysateen. confirmation candleskaas kaligood wax ma ku tarayaan waxa u baahan tahay inaad aqoonteeda aad leedahay. aqoonteedina waxaad ka heli doontaa haddii uu ilaahay ka raan noqdo Caadle trader. so waxaan intaan ama setup-kan kaliya ay dadku lacag ka sameeyaan iyagoo daneynaya in ay suuqa la qabsadaan jihooyinkooda. sidoo kale totalkan waxa inooga bilaaban doona wax loo yaqaano ibda condition maxaa laga wadaa marka waa interbank price delivery algorithm. insha Allah waxaan ku rajeynayaa horumar iyo baraare guul wacan ayaan idin rajeynayaa hala dadaalo insha Allah.